أما سنتا خديجة عبد الله دلايس waxay fanka Soomaaliyeed ku soo biirtay 14 bishii November sanadkii 1952 Khadiijo xilligaasi waxay ahayd aroor subaxa oo saacadu ay ku beegnayd 8 aroornimo markii kooxdii fanaaniinta ahayd ee Radio Muqdisho ay qaateen Khadiijo Cabdullaahi Dalays waxay muddo dheer ka mid ahayd hobolladii qaranka ee Waabari heesaha faraha badan oo ay qaado fanaanadu ciidan waa ka badan yihiin kaaga darane waxa ay ku heystaa labada lahjadood ee Soomaalida ee Maay iyo Maxaatiri Khadiijo Cabdullaahi Dalays waxa lagu tilmaamaa inay ka mid tahay hooyooyinka fanka Soomaaliyeed anigu waxaan ku xusuustaa kulli da'dayday ka hadli doontaa riwaayadii ay ka mid ka ahayd jinnigii cirkow waa lagu yaqaan fariiso ardadaas baan ka mid ahaa haddaba abaalmarinteeda Khadiija Cabdullaahi Dalays fanaanada Soomaaliyeed hooyada Soomaaliyeed waxa guddoonsiinaya adeer Cusmaan waxaan doonayaa inaad si wanaagsan oo qiimo iyo xushmad badan fanaanada adikoo istaagaya waliba aad igu sacbisaan Khadiija Cabdullaahi Dalays Khadiija oo laba kelmadood idin odhanaysa ayaan ku soo dhaweynayaa Khadiija sababta aanu ugu yeedhnay waxay ka timi ilaa iyo Canada waa fanaanada ugu da'da weyn hablaha Soomaaliyeed ee fanka soo maray ee maanta nool Anwar idin sheego way weyneeyay 25 laba bilood baa ii raacsan aad iyo aad baad u mahadsantihiin maana soo waa naga horeysaa waa matayrsanahay matayr baa haya ma lagama hadli karo ilaahay idin daayo ilaahay kor haydin ka dhigo ilaahay waxaan ka baryayaa saad isugu duubantiin waan ooyayaa inaad isugu duubnaataan Soomaalina ha noolaato Soomaali ha noolaato ha israacdo hal kadmad baan ku darsanayaa raas casayr iyo raas gambooni Soomaalidu waa halgeed ku yaal geeska Afrika badda cad badweyn baa nagu gadaaman laba wabaaguulay la siiyay haddana gaajaan qabnaa gacmahaan hoorsanaa gargaar warsanaa shisheeye Soomaaliyey calankanu yuu gablamin aad iyo aad baad u mahadsantihiin da'daydu markaan dambi iska dhaafo dambi aan dhaafo 3 maalmood baa ii heli
Para